Habraaca doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa la soo saaray iyadoo qorshuhu yahay in 25 bishan la gudagalo doorashada aqalka sare ee bilowga toddobaadka soo socda. Waxaa la soo bandhigay shuruudaha laga doonayo qof kasta oo u tartamaya aqalka sare ee Soomaaliya, warqadda anshaxa iyo musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo akoono bangiyo oo lagu shubayo lacagaha khidmadda ah ee laga doonayo xubnaha musharaxiinta aqalka sare. Lacagtaasi oo gaadhaysa 20,000 oo doolarka Mareykanka ah. Qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee heer federaal ayaa lagu sheegay inay guddigu la wadaagayaan codsi qoraal oo madaxda maamul goboleedyada ay u soo direen oo ku saabsan xubnaha isku soo sharaxaya aqalka sare ee Soomaaliya inay noqon karaan ugu yaraan 2 qof oo kursigaasi u tartamaysa si waafaqsan shuruudaha musharaxnimo ee aqalka sare. Sidoo kale guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa qoraalkooda ku sheegay inay hadda qabanayaan waraaqaha musharaxiinta aqalka sare iyadoo hubinta shuruudaha musharaxiinta la isla eegi doono oo dib loo hubin doono matalada aqoondada haweenka ee 30% inay ka qayb qaataan. Sida lagu shaaciyay qoraalka guddiga doorashooyinka, shuruudaha laga doonayo musharaxiinta aqalka sare waxaa ka mid ah inuu yahay muwaadin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, inuu dhimirkiisu caafimaad qabo, inaysan da'diisu ka yareen 25 sano jir, inaan xaquuqdiisa muwaadinimo go'aan maxkamadeed laga gaadhin 5 sano ee ugu dambeysay, inuu leeyahay aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo u dhiganta, inuusan ka tirsanayn ama wax xiriir ah la lahayn kooxaha argagixisada ah, inuu haysto warqadda dambi la'aanta ee hay'adda dambi baarista CID, tan maamul goboleedka iyo tan federaalka. Musharax kasta oo u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waa inuu bixiyaa lacagta diiwaangelinta kuna shubaa xisaabaadka bangiga adduunka doorashooyinka qaranka. Lacagtaasi oo 20,000 ah. Lacagta musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee Soomaaliya ayaa la qoondeeyay inay 20,000 oo doolar noqoto, halka tan musharaxiinta golaha shacabka ay noqonayso 10,000 oo doolar. Lacagta diiwaangelinta musharaxiinta dib looma celin doono mar haddii lagu soo shubo akoonka guddiga doorashooyinka qaranka. Habraacan la shaaciyay ayaa ku soo aadaya iyadoo guddiga doorashooyinka Soomaaliya ay horey u sheegeen inay fulin doonaan jadwalkii doorashada la soo saaray ee ku saabsan in ugu horeyn 25 bishan la doorto xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, taasoo ka dhacaysa xarumaha maamul goboleedyada.